xildhibaanada waxaa leenahay hala taageero mooshinkaas hala taageero qof wanaagsan oo 2 sano harsan waddanka gaarsiiya dimuqraadiyad ala soo saaro loo diyaar garoobo annaguna dibadda ka joognaano Faysal Cali Waraabahay xiiso badan baan ku leeyahay Soomaaliya waan la shaqaynayaa inay cid wanaagsan timaado waan la shaqaynayaa inay cid wanaagsan Soomaaliland si walaalnimo loo kala baxo $3 walaala Djibouti Soomaaliland Soomaaliya xiriir wanaagsan yeelano aynu United Nations wada galo oo igad wada galo bal qofka leeyahay Soomaaliland xora oo wanaagsan dibadda Soomaaliland hay taabsiyo marka ana fara ka qaaday marka wax leenahay mooshin ka socdo dimuqraadiyadu ha socoto distoorku ha socdo ma leenahay waana hambaliyana dadka keenana xaaladda hadda uu mariyo Soomaaliya marayso iyo magaalada ficilkan uu sameeyo farmaajo iyo qura khatar kuma yahay isirka Soomaalidu uu khatar ku yahay Soomaaliya geeska degan oo dhan khatar ku yahay ninka maanta Eritrea iyo Ethiopia iyo Confederation la sameeysanaya Soomaaliya kala daadsan ninka dekedaha Soomaaliyeed oo mid qura aanu xukumay isagu u saxay ninka maanta istaraatiiji la sameeyay dowlad goboleedyada baabiinaya saniyadii xaqiisa guriga sare baabiyay haddana baarlamaanka u soo jeesaday marka ninka wuxuu ku shaqeeyaa maskaxdii 1980s hore waanu waxaan ilmaha yara wuxuu duubaa ilmaha ka weyn ficilkiisa hadduu qalqaali noqdo inankan wuxuu duubay uu ku barbaaray amalkii Maxamed Siyaad Barre tiibu doonaya dalka inuu ku celiyo shaqadii iyo ficilkii Maxamed Siyaad Barre iyo istaraatiijigii jiray iyo hogaankii jiray qaladka weyn ee la sameeyay wuxuu ahaa doorashadiisii inaan yaroo waddanka ka maqnaa oo garanay complex meesha ay tahay arinta Soomaaliya taagan tahay aan garanay xamaqnimada marka loo doortay waa consequenceedii ba weey marka waxaan aragnaa inuu faraha kala baxaa weey haddana magaalada South West doorashadeeda waanu hambalyeynaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal wuxuu noqday nin qiimo leh nin integrity leh buu noqday nin sharciga ilaaliyo noqday waa garab taaganahay Soomaaliya wax u baahan tahay qabyadu u baahan durbaan baa hadda la wadaa ninka la yiraahdo boqor burhaan ma la yiraahdo ilaahay boqor subhanahu wa ta'ala oo qabiiliya durbaanka daaroodiisam ku wado ee ka socda ee wado gobolka magaalada Garowe ee fiday hadda Soomaali khatar buu ku yahay waxaan leenahay halaga weentoobo durbaanka qabiilka oo waddanka ayaan lagu celinin 1990 waxaan leenahay dhalinyarta fayda Soomaaliya uu ku soo ururiyay aqalgoodu yahay aynu aarsano galorigi reereebada soo celino madaxnimada adeer waxaas ma soconayso yaa la kabkabi Shariif Xasan Sheekh Shariif Axmed ya Xasan Sheekh ay soo kabkabeen maanta uu baabiyay farmaajo waa baabiyay waninka diyaaradda ka degeen ee dadka dhulkooda hagaajistay ee dawladaha iskala dhigaya ee heshiisyo la soo saxanaya aanu fulin kareen ee Soomaaliland u diiday inay noolaato ee Soomaaliland xooga saaray inuu adduunka soo xiro wuxuu ka soo xiri karaa Maxamed Siyaad Barre asana ka soo xiri kara waay ana waxa leenahay colaad Soomaaliyeed ma qabno Soomaali intaanu gelin cid galeysay ma jirto taariikhan awooyaasheeda midnimada anaga keenay awooyaasha keenay anaga ku qasaarnay imkaan Soomaali culum hay'adda gurigeena ka talinaya ninka la guriga kama talin kara ana ka talinaya waxaan aadab joog